بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واني سلامي كل جين بصومالي محمد مال الله علي يمشي الدنيا دعنا ذي ذا شوكتان رالي هذا وقد قرالك أيضا كسرت يقرنك إما بني السلام صح ولا thank you ها ساقاتي thank you. واني سلامي كل جين به سلامك بعدي محاجرة مانتي محا كسعودة سوماليا سيوة حجران مدحدي iyo hadii laga hadlo dadkii wasaaradda gobolada iyo maxaan ka sheegi karnaa horta waxaan idin sheegayaa in Soomaaliya xogaa way iska qasan tahay markii waad la socotaan kulligiinba inay qasan tahay oo ay si xun u qasan tahay maxamed cabdullaahi farmaajo oo dictator yahay oo isticmaalaya awood iyo quwad laakiin uu ka tagay xadkii noo yaalay Soomaalinimadii iyo wuxuu ka tagay waxyaalihii kale oo la midka ahaa madaxweynaha Soomaaliya maanta wali isaga madaxweyne ka ah laakiin qof kasta wuxuu sugaa wacdadiisa iyo waqtigiisu dhamaanahay kaliya ayuu sugayaa marka waxaan rabaa inaan laba kalmadood aan in ka iraaho waxa ka socda galmudug iyo qabanqaabada gobolada Soomaaliyeed ka jirta iyo muqdisho maxaa ka socda galmudug hadii aan inii ka sheekeeyo waxa ka socda horta wax la yiraahdo xagga security oo aad loo adkeeyay ayaa galmudug ka socda aad iyo aad baan loo adkeeyay waxaana jooga dad golaha sare iyo kamid ah amna eelay on halkan ka salaamayo ma sha Allah tabarakallah wanaag geesiyada wanaag wadaniyada wanaag aan ogahay Soomaaliya in waxyaalo badan iyo isku heshiisiinta anka inay ma aragtay wax ka keeni karta in the future ka Soomaaliya marka aamino meeshaan ka salaamaya amna eelay waa ku salaamay walaashay macaan وانا dadka aad iyo aad human right ka ugu dagaalama marka waxaan leeyahay xagga ma aragtay adayga ma aragtay la adkeeyay dad aan xogaa u kaaliyaashi problem aan kala kulmay dad la adkeeyay gudiga barbaar particularka gudiga oo ma aragtay maanta security Soomaaliya adkeynaya waxa joogo kaleeto waxa yimid lafta greena yimid welcome baan leenahay galmudug iyo dhuusamareeb waxa jiro kaleeto dad badan oo ka soo qayb galay waxa jira in caawa la sugahayo in fidmadii hore oo Soomaaliya in la sugahayo dani iyo ma aragtay Axmed Madoobe ugu dambeyn tomorrow in the morning ka inay soo wada galahayaan dadkii oo dhan oo security iyo wax kastana galmudug la wada hagaajiyay marka waxaan leeyahay senatarada iyo waxaan leeyahay dadka ma aragtay wasaaradaha iyo wasiiriinta Soomaaliyeed oo reer galmudug inay aad iyo aad maanta loogu wada mashquulsan yahay oo loogu wada ma aragtay taagan yahay in shirka Soomaalinimada oo ka dhaxeeya gobolada Soomaaliya iyo Soomaaliya waa dad aan kala maarmin waa dad walaalaha wada dhashay marka waxaan ka sugi doonaa shirkaas inuu wax qayb qabo oo sharaf leh inuu ka soo baxo oo ka soo baxaya waa rajaynayaa den markaas ayaan kala ogaanaynaa si wax jiraan laakiin inta ka horeysa waxaan ii sheegayaa waxa dhooban ragay ma aragtay waxyaalo badan ka qabanqaabinayay magaalada dhuusamareeb waa la wada joogaa lafta gareen waa joogaa waxaan jeclahay in Hirshabelle wiilkii hayay madaxweynaha ahaa waa joogaa asaguna dani caaw soo galahaya Axmed Madoobe hadii uu caaw imaan aroorti waa imaanaya in way waftiyadii waa laga soo wada hormaray dadkii particularmente ilaalinaya xagga security iyo xagga ma aragtay dhaqdhaqaaqa iyo xagga waxaas oo kaleeto oo aaminaanka ay ku jirto ayaa jooga amna eelay aad baan ugu mahad celinayna hadaan ay shacabka Soomaaliyeed waa qof magac iyo muuqaal iyo sharaf iyo wanaag kale anigu waan aqaana aad baan u aqaana marka aamina waxaan ku leeyahay walaal guuleyso waxaan jeclaan lahaa meeshaas inuu guul iyo wanaag oo ka soo baxo Soomaalida taas ayaan leeyahay hadii dadka Soomaaliyeed loogu sheekeeyay anigu inaan raxweyn ka sheegay waligeey Allah afkeyga ma aanan gaarsiinin koonfur galbeed Soomaali walaalahay ayaa degan oo ila dhasho wada dhiiga hadii anigu aan dadka aan wax ka sheegahayo Xaaji Muxtaar Roobo uma hadleen oo ma aragtay xarigiisa inaan aad uga kululaado ilaa haddana aan ka kululahay hadalkiisana aan joojinayn waa la ogyahay qofka igu nacayahay ugu naco balkii waxaan ogahay Muxtaar Roobo inuu bila dambi ku xiran yahay siyaasad uu ku xiran yahay mideeda kaleetana halkan waxaan uga mahad celinaynaa oo aan ka raali gelinayaa lafta green balkii lafta green sida aniga maqalka iyo sheegitaanka dadka iyo muuqaalku say wax u jiraan iyo siday kala tahay waa labo aan isku dhaweynaa la yiri oo ma aragtay kala fog
markii waa qof walaalo aniga siyaasadda aad iiga hooseyso hoos ahaan u taqaana xagga siyaasadda qofka markuu siyaasadda ku jiro Soomaaliyeed marka waxaan leenahay waa soo dhaweynaynaa lafta Graham gacmo kulul iyo qalbi wanaagsan ayaa lagu soo dhaweynayaa Dhuusamareeb security-ka Dhuusamareebna waxaan ku leeyahay saacado dhan baa maanta la iiga sheekeynaya aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in la adkeeyo security-ka in laga saaro ciidamada haramcadka la sheegayo ciidamo ayna lahayn Galmudug in maaragtay aan la keenin dani niman badan baa ka soo hormaray oo ciidano oo maaragtay chief security wada ah dad badan baa jira waana run laakiin anigu waxaan idin huba xalina waa inii sheegay shalana waa inii sheegay Galmudug inay wax kasto ay qayr ku dhamaanayso oo maaragtay wax kastana qayr laga keenayo marka waxaan leeyahay walaalahayga Soomaaliyeed taas inaad ogaataan ayaa loo baahan yahay waa very important inaad la socotaan xagga security-ku waa very important waana muhiim laakiin waxa inii hubaa maaragtay ciidamada reer Galmudug in ay ka soo baxayaan qaybta ay leeyihiin Galmudugna ammaanada lagu yaqaano iyo nabadgelinta si dadka u nabadgeliyaan si fiican lagu yaqaana waana ka suurta gashaa waana ka suurtoobaysaa taas anaa inay dhahaya indhuhuna waa wada furan yihiin marka waxaan leeyahay anagu Galmudug ayaan usoo wada jeednaa Galmudug wixii ka soo baxay shirka ayaan sugaynaa laakiin weyga maanta uu ku socdo dadka soo hormaray dadka maaragtay xagga dastuurka qaabilsan dadka xagga maaragtay shuruucadaha maaragtay security chiefka iyo qaabilsan dad badan baa soo hormaray oo dawlad goboleedada ka soo hormaray dad oo lafta Graham maanta uu joogo oo maaragtay ay wada joogaan marka waxaan leeyahay soo dhawaada waan idin soo dhaweynaynaa haddaan nahay shacabka Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa inaad meeshaas wax qayr leh oo faa'iido Soomaaliya shacabka Soomaaliyeed iyo kan dhalan doona aakhirka inaad ka soo saari kartaan that's waa important waxaa la yiri adduunyada waa laga tagayaa socdaalaan wadanahay gud baan wada sugaya marka waxa loo baahan yahay almeeno waa inuu magac ka tagaa magac hadii uu ka haro awlaadaadana magacaas iyo kuwa awoogu u tahay yeelanayaan waxaad ka dadaashaan xaquuqul insaanka dad aan ogahay aamino inay ka mid tahay dadka proper human right-ka ku jira xagga xaquuqul insaanka in aad ku dadaashaan dhasha dambe oo dhalan doonta in the future oo wali aanan imaanin adinkoo dhulka u sii xaaqay ayadoo nabad tahay in awlaadu ku dhashaan awlaad baahi ku dhalata waa laga fiican yahay awlaad holac iyo qarxis iyo dil ku dhalatana waa laga fiican yahay waxaan ka sugaynaa raggaas walaalahayga Soomaaliyeed waxyaalo waaweyn ayaan ka sugaynaa insha Allah biidnillaahi kariim taas aan leeyahay waxaan in ka rabaa rag badan oo cilmi leh aqoon-yahana maskax leh oo magaca hawiye sheegta ayaguna meesha way tagayaan you are welcome waxaan xaquuqul insaankana halaga adkeeyo meesha human rights women-kana halaga adkeeyo meesha waxyaalo badan baa jira waa in ay aad u wada adag tahay waxaana loo baahan yahay sinatarada iyo dadka tagi doona ayaga naftooda oo raba inay ka qayb galaan shirkaas waa in wax Soomaaliya dhaxal u noqon doona ay iska ilaaliyaan wadanka qadar la leeyahay qadar meeshii ku jirto waa iftilo qadar maanta waxay wadaa in ay lacag ku finance gareyso ragga imaan doona oo madaxweyne noqon doona marka anigu waxaan leeyahay nin kasta oo rajo kale Soomaaliya Xasan Cali Khayrabe Allah ka dhigay iyo madaxdii hore oo wadankan hore u soo xaaqday oo hore u soo qurxisay oo maanta waxa uu ku faanayo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ragu dhiigoodii u soo daadiyeen u soo hureen waxaan rabaa walaalayaal in aad qadar ka dheeraataan qadar waa terroriste anigu I don't like it qadar dad bay iga dishay one day na maxkamadan wada koreynaa laakiin waxaan leeyahay qadar la iska ilaaliyo nin allaale iyo ninka siyaasiyiinta oo biri u nacam leeyahay qadar ha ogaado Soomaalinimada inuu ka tagay meeshaan markaas ma noqonaysa qabiil cadowga Soomaaliyeed inuu yahay waa in maxkamad lagu saaraa oo immediately la xiraa markii la ogaado taas waan idin salaamayaa programkan hala share gareeyo subscribe hala saaro like hala saaro waxaan leeyahay vegan hala saaro marka taas aan leeyahay waxaan u gudbahayaa YouTube-ka waa aad baan idinku mahad celinayaa waxaan ku leeyahay nolow amna elay nolow waa run qofkan aniga ii aqoon amna elay adinka dadkiin qaarkood shalad barateen ama dadkiin qaarkood shalad wuxuu ku bartay qabiil aniga iyadu qabiil isku makaaya keenin walaaltinimo iyo saaxiibtinimo annako inta ka yar oo gabdho yaryara aan isnaqaanay ilaa maalintii Soomaaliya ka tagaysay marka waxaan leeyahay ninka aniga igu riixaaya inaan raxan weyn wax ka sheegay walaal waad qaldan tahay dariiqaha ka dhumin aanu qof kasta oo qaldama qabiilkiisa wax ka sheegaya in muumintadaas laakiin waa iiga dhamaatay qabiilooyinku shaqay shariif bay leeyihiin waataan dhahay wax garadkii culimadii anigu weligay alle raxan weyn wax ma sheegin laakiin dadka beenta sheegaya waxaan leeyahay be careful because biri waa kugu soo noqonaysaa cajaladii aan ku wada hadlayno kulli waa wada yaalaan arkiiviyay ku yaalaan waa deposit marka waxaan leeyahay weligii dadka bilaadanka been lagama sheego anigu dawladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wixii lug ku loo dhan iyo lafta Graham ka hadlahay maantana
ID fiican أول بانو نيك هور أقول ما أنا نقول ID نكمله ما نقارن هذا لكن دتك أنا قارنه أو رحموين أو أنا بس فرينك إلى هون عيش كوضع عني وحي إيش يجين قدر سأقوم مليني سيد معهم وأنا كده جيسن هيا وأنا كي لهيا مركا تاس أيان إن ولا ليال قبيل ميشان بيا له سياسة بعطال سياسة دونا وفريتات أديك أتسميني سويا مركا وكنت هبدين على توريست مركا تاس إنكو سلام هيا ولا عليه مع الصوماليات welcome باتين سوماليا نود استاجنو كلي تليانا عن كقبلنا إنه النبى كسر بحين وطن كسوماليا ريبوبليكان ديمقراطيك سان أكتو أصارني لحدنكي وننا نوجه أوكل جوي الله ونحريسته وحبك مشي جاي مع مسياد بري إلهي نحريسته هسيو إلها أنتي وقف آذناه وهاي وأنتي ما أنتي إلها وحكست كله ما أنتي محمد عبد الله فرماتش إله بالله حساب تماي إيوه كوشين سديس جدها إن شخصية ديس إنسايد كقلوب ديس أصدق ربي أياك حساب تماي وحوش الله فين هايو يوحي المسك حديث كتير وأقول قفكم مركو أفك كادلو لكن قلوب ده إلها إسكاله إلها دال على آدم قلبك جيس محمد عبد الله إله اللي قداي سومالو دم ولوجيا لك ولا إسكا قبنايا وكان قال لاس إنه قبل برا شبيل وين إنه يراهو كسب بحر بل أنت لقى عياره يوسف سمي أول عيدا كان قبيل كاو مغذى أو لوتشيدو أو بعكسي أو ضد بدن كبابي ورا آخر هذا قضوا أنا بوحن كلها